تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله. محاضرadu waxaynu oran karnaa ama kelmadan oo ku jahaysan qofka muslimka ah habka uu u soconayo adduunyadan in noloshiisuna ay deganaansho ku heli karto warwarka iyo walaaca iyo walbahaarka iyo u qaadan waaga waxa la yiraahdaana uu kaga yaraan karo marka qofka dhibaatooyinka haday dhibaatooyin haystaan iyo haduu wax tabayo iyo diiqadu gali lahaa iyo duruufaha sidoo xallinayo ee aan ugu dawaqeen waa nasaaix iyo talooyin culimadu ay mufakkiriintii ka qoreen oo aynu soo urursanayno inta waqti waynu ka gaadhno insha Allah aata koobaad waxa weeye fakkir washkur marka hore waa inaad fikirtaa ilaahayna u mahadnaqdaa subxaanahu wa ta'ala waxaad ka fikiraysaa wuxuu ilaahay ku siiyay faraha badan halkaad meel kale afka u taagi lahayd oo waxyaabaha dadka nolosha ka xumeeya waxa kamid ah iyagoo aad u sii eegaya wax ilaahay cid kale uu siiyay ilaahayna wuxuu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha nicmooyinka ilaahay hadda tirisaan ma koobi karaysaan marka maxaa lagu siiyay caafimaad iyo cunno iyo dhar iyo dhooni iyo biyo iyo hawo hadda waxa aad hayso horta adigu ee dad badan aanu haynin taa ka fikir ilaahay wuxuu wa asbaqa calaykum ni'amah zaahiratan wa baatina ilaahay nicmooyinkiisu aad idin ku badiyay nicmo muuqataana way jirtaa mid qarsoonina way jirtaa oo adoomuhu taa qarsoon waxay gartaan markay waayaan nicmooyin waxa jira marka hore aynaan aad ba u dareemayn laakiin marka uu adoonka dhaafaan ee dhakhtarada uu ka waayo lacagtiisana uu ku waayo ayuu aad uga fikiraa u yiraahdaa wartanina ma baan dareensanayn bee iyaduna nicmooyinkay ku jirtaa ilaahay baa wuxuu fa bi ay aalaa'i rabbikuma tukadhibaan jiniya insiyo nicmooyinka ilaahay uu idin siiyay faraha badan teebaa beeninaysa marka qofka humuumta iyo diiqada uu dareemayo waxyaabaha ka fududeynaya waxa kamid ah shayga loo yaqaano inuu ilaahay u mahadnaqo waxa ilaahay uu siiyayna uu aad uga fikiro waxa labaad oo nasaa'ixa kamid ah ma madaafata wixii tagay inaanu qalbigaaga aad ugu soo noqnoqonin oo aanu ku dhibin oonad habeenkii ka seexan waayay waayo ilaahay waxa uu inoo siiyay waxa la yiraahdaa ilowgaasi waa dawo weyn ilowaynu la yaabsanaay ee aynu leenahay ilowgii baa igu batay hadda danteennaba weey haddii wax walba aad xusuusanto waxaad ilaawaysaaba aanu jirin oo daakiradaada iyo xusuustaada waxa la wixii muruga ahaaba aanay ka tagaynin mabaad seexan karteenba geeridii baad ilaawaysaa balaayadii kugu dhacdaad ilaawaysaa wixii ku dhaafay baad ilaawaysaa dan iyo maslaxad ba inoo tahay waxa la yiraahdaa tadakkuru al-maadi wa tahazunu qatlu lil-irada qofkii oo xusuusta wixii dhaafay oo ciil iyo carab uu go'ciil kama kala noqda waxa weeye qatlu lil-irada qofka go'aankiisii iyo horumarku sameyn lahaa bay ka dilaysaa idan cinda al-uqalaa yudwa wala turwa wala iska laabaa safxada oo lagu macalceliyo lama qofka hortiisa u neetaala maaha wixii dhibaatooyinaha iyo wixii dhaafay ilaahay baa wuxuu tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtu taas waa ummad tagtay sideeda ku dhaafo idinku shaqaysta way yawmuka waxa kamida nasaa'ixa maalintaadu waa maalintaadii maalinka taagan tahay maalinaad iska leedahay way oo aad ku xisaabtami karto idan marka aad gabalku uu ku dhaco subaxdii ha sugin marka waagu ku bariyana galabtii ha sugin waqtiga aad taagan tahay ku xisaabtan cimrigaagana ka soo qaad maalin kaliya inuu yahay maalinka saacadihiisa sanado qaybi daqiiqadihiisana ayaamo idan marka ka faa'iideyso iyo ku dhaafi dadkana had iyo jeer waxa ay ku kala horumaraan waqtiga jooga kolba sida ay uga faa'iideystaan Abdullah ibn Mas'ud Allah ka raali noqdo waxa uu lahaa waxa aan ugu muruga badnahay maalin intuu ii soo galay iga baxay
oo cimrigaygiina naaqusay camalkaygina aanu kordhin cimrigaygii wuu naaquso maalinkaasi waa dhaafay laakiin camal maalintaa ii kordhay ma jiro ila cilmiga laftiisii waa camal waxa aan ugu muruga badnahay waa kaas ilaahay baa wuxuu yidhi wakhud maa aataytuk wakun min ashaakiriin waxa aan ku siiyey qaado kuwa mahadnaqana noqo nasaa'ixa waxaa ka mid a utruki lmustaqbala xataa ya'ti mustaqbalka soo socda iska daa ilaa intuu imanayo dad fara badan baa iyagana waxaa dhibaato ku haya mustaqbalka iyo warwarkiisa gaajay ka warwarayaan faqri bay ka warwarayaan balaayay iska warwarayaan marka warwarka faraha badan ee mustaqbalka qofka haystaana waxyaabaha nolosha ka xumeeya wey ataa amrullaahi falaa tastacjiluuh arrimaha mustaqbalka waxba ha dedejisinina ayaa rabbi wuri subxaanahu wa tacaala oo iyada oo qofkii axdaafta iyo dhacdooyinka uu ka horu maro waxay noqotaa ijhaad umuurtiisu way dhicisaa qofkaa oo wuxuu ka dhignaanayaa qof midhihii goosanaya intaanay gaadhin wakhtigii bisaylka marka waxaad ka warwartaa ayuu jirin shaydaankuna waxa mustaqbalka la xidhiidha ee warwarka uu kaaga hayo ee aad ka seexan laadahay iska dhig ilaahay baa wuxuu yidhi ashaydaanu yacidukum alfaqr waya'murukum bilfaxshaa wallaahu yacidukum makfiratan minhu wafadlaa shaydaanka waxa kalgeedka shaydaanka la idhaahdaa kaa mufsidka ah ee magacaa la baxay waxa uu idiin yaboohayaa faqri iyo foolxumo mustaqbalka ku saabsan ilaahayna dembi dhaaf iyo fadliya dheeraad buu idiin yaboohayaa nasaa'ixa waxaa ka mid ah kayfa tuwaajih annaqda alaathim had iyo jeer qofka bani aadamka ah dad fara badan baa ku soo jahaysan weliba qofka marka ilaahay waxyaabaha tafdiilaadka dheeraadka uu wax ka siiyo da indhuhu way soo eegayaan afkuna wuu hadal hayaa gacmahana waa lagu fiiqayaa haddii ilaahay aqoon siiyo hadduu adduun siiyo hadduu awood siiyo wixii ilaahay uu qofka siiyey dheeraadaba waa lagu hadal hayaa idan markaa taasina yay noqoni wax niyadda kaa wasakheeya waxaad ogsoon tahay nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam in la caayay oo qaar wakhti hore jooga iyo oo wakhtigiisii ahaa iyo qaar hadda jooga labadaba inay caayeen baad og tahay nin shaacira baa waxau yidhi xasadulfataa idaa lam yanaaluu sacyahu faannaasu acdaa'u lahu wa khusuumu qofka dad badan baa marka ay dadaalkiisa gaadhi waayeen cadow u noqday lana murmaya marka ha ku fikirin an takuuna maqbuulan lada aljamiic saaliman min alcuyuub cinda alcaalam haadaa mustaxiil inaad dadka agtooda oo dhan noqoto mid laga qaadanayo oo cidi aanay ka hor imanayno gacmo furan lagu soo dhowaynaya taasi maya rasuulkii iyo rusushii ilaahay baanay ka dhicin sidaa daraaddeed haddii qaar ku caayaan ama wax kaa sheegaan in badanoo ku ammaanaysa in badanoo ku taageersan in badanoo waxa wanaagsan ee aad waddo soo dhowaynayaa jira marka taasina inay nolosha dhadhankeeda kaa lumiso maaha nasaa'ixa waxaa ka mida laa tantadir shukran min axad qofnaba ha ka sugin inuu kuu mahadnaqo oo dadka ha odhanin wax wanaagsan baan wadaa oo cilmi leh oo infaaq leh oo waxtar leh oo dan guud leh maxay wax iiga sheegayaan ama ay igu mahadnaqi waayeen oo marka xafladaha laga hadlayo iyo marka warbixinaha la qorayo iyo marka taxliilka la samaynayo haddii laguba soo qaadi waayo dee ka fikir in ilaahay agtiisa un lagu soo qaadi doono oo xuska ilaahay unbaad ka sugaysaaye laa tantadir shukran min axad haddaad doonayso noloshu inay macno kuu samayso dadka mahadnaqooda iyo ammaantooda waxba ha xiisaynin ilaahay baad abaalmarin ka sugaysaa subxaanahu wa tacaala hadday macruufkaaga diidaan iyaga oo u diidaya liannaka axsanta ilayhim xataa inaad u samafashay adoo u samafalay hadday kula soo qaadi waayaan ha ka sugin ilaahay baa wuxu uhi wamaa naqamuu ilaa an aqnaahum allahu warasuuluhu min fadli waxa ay kula dagaalameen rasuulka iyo mu'miniinta in ilaahay iyo rasuulka uu qani ka dhigay ilaahay baa qani ka dhigay rasuulkii baa qani ka dhigoo wax siiyey haddana nacaybshiye iyo colaad bay kala hor yimaadeen ee mabay u mahadnaqinba qur-aanka waxa ilaahay uu tilmaamay qofka gaalka ah marka hore ilaahay buu baryayaa marka uu dhibaatadaa rabbi ka dulqaadana ilaahayba uma mahadnaqo marra kaan lam yadcunaa ilaa durrin masa wuu iska sii soconayaa waxaabaad mooddaa kii aanna baryinba
marka adoomo badan baa markay baahnaayeen ilaahay baryay subxaanahu wa tacaala markaasuu ilaahayna dhibkii ka dulqaaday kadib ilaahay bay u mahadnaqi waayeen adiguna waxba mahadnaqa ka sugin kuwooda aad macruufka u samayso dhib badan oo dareemi lahayd markaa waad ka nasan doonta nin baa gabyayoo waxa uu mahad iyo abaal ka waayey inaanu u samafali jiray oo uu koriyey kiibuu ka cawdayoo waxau idhi ucallimuhu rimaayata kulla yawmin falama ishtadda saaciduhu ramaanii maalin walba waxaan baraa shiishka waxaan baraa horumarkiiyo awoodda markuu muruqiisii adkaaday anigaabuu igu dhug bartay buui aniga laftigaygii ayuu shiishkii iga bilaabay intuu wax igu tara iska daayo marka ummad badan oo aad ixsaan u samaysay ayaanad abaal ka helayn qaar kale ayaa waxa wanaagga ah laga yaabaa inay kugu xaasidaan cidnaba mahadnaqa ka suginaan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala waxyaabaha kuu dhib yarayn kara sacaadada ee ku siin kara weeye waxaa ka mid a nasaa'ixaas alixsaanu ila alkhayr inshiraaxun lisuduur waa kollay nasaa'ixna weyn hab qaaciidana way u socdaa alixsaanu ila alkhayr inshiraaxun lisuduur inaad dadka u samafasho laba midun bay noqonaysa inaad dadka adigu u ixsaan samayso ood u samafasho iyo inaad dadka adigu ka godob qaadato marka ta fiican ee had iyo jeer nolosha sacaadada iyo wanaagga u keentaa waxa weeye inaad dadka u samafasho arrin iyo adduun iyo aqoon iyo awood wixii aad ummadda dheer tahay isku day inaad noqoto kas wax siinaya ee iyaga aan waxba ka sugaynin marka waxaa la yidhaha aljamiilu kasmi waalmacruufu ka rasmi waalkhayru ka طacmi marka shayga jamiilka la yidhaahdaa magiciisaasunbuu la mid yahay shayga jamiilkaahi jamaal buu keenaa iyo qurux macruufkuna curfi iyo wanaagunbuu keenaa wixii wanaageed samaynaysa waxaa la yidhaha awalu lmustafiidiin iscaadu lmutafadiliin dadka had iyo jeer tafadulka iyo dheeraadka leh ee dadka isku daya inay waxu taraan waxtarka u horeeya iyaga ayaa leh waxtarka u horeeya iyagaa yeelanaya ilaahayna saasuu qur'aanka ku ammaano waxau uhi wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi alaclaa abuubakar bay ku soo degtay baa laydha aayaddu cid alla cid uu wax kaga doonayay ma jirin cid abaal ku lahaydna ma jirin wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza marka abaalka ilaahay unbuu ka sugayaa idan ku xisaabtan inaad dadka u samafasho taasaana adiga nafis ku ah mar haddaanay gacan kaa sugayn aanaad adigu iyagu aanay wax kaa sugaynin iyaga un ay wax kaaga maqan yihiin nasaa'ixa waxaa ka midoo ka sideedaada udrud alfaraaqa bilcamal udrud alfaraaq bilcamal haddaad doonaysa sacaadada nolosha iyo maskaxda iyo qalbigu inay kuu nastaan waxaa la yidhaahda faraaqa oo ah qofku jaaniska uu haysto inuu ku buuxiyo shayga camalka la yidhaahdo walow ciyaar jidhkiisa dhisaysa iyo tababaraan khayrka ka mashquulinna ha noqdabe oo waxaa la yidhaahdaa alfaariquuna fi lxayaa hum ahlu lirjaafi waashaa'icaat dadka had iyo jeer jaanis kale ama faraaqa hayeen shaqaysanaynin waa kuwa ugu muran badan ee ugu munaafaqad badan ee ugu isku dir badan sidaa daraaddeed baa munaafiqiinta ilaahay uu ka warramo wuxuu yidhi raduu bian yakuunuu maca alkhawaalif waxay raalli ka noqdeen munaafiqiintu intay jihaadkii ka hadheen oo howlihii caamka ah ee ummadda ay ka hadheen inay maca alkhawaalif dumarka ee guryahooda joogay ku hadheen marka hawl oo dhan kolkii ay ka hadheen hadal bay isu taageen foolxun inay tiriyaan oo aad iyo aad ay wax uga sheegaan dadkii mu'miniinta ah rasuulkuu horkacayay sala allahu calayhi wasalam waana dhab weeye oo sidaa culimmadu ay sheegeen in fara badan dadkeenna waxa ama qaylaadda ku kalifaya iyo balwadda waxa boolatiigga iyo fadhi kudirirka ku kalifaya dee waa faraaqa qofku hadduu 10 saacadood shaqayn lahaa 2 saacadoodna midna uu sii socon lahaa midna uu soo socon lahaa 4 saacadoodna uu cibaadaysan lahaa waxa laga yaabaa cidba kii la hadlaba wuxuu odhan lahaa fadlan lacagii weydii wakhti kuuma hayee adigoo iga raallaya wakhti oon kuu hayaa ma jirayo wax hadalan toona aan karayaae waan soo daalo ama waxbaan karsanayaa ama dharkan maydhanayaa ama in yar baan yaro nasanayaae hore ka sii dhaqaaji buu odhan laha lacag waan ku siin karaa laakiin wakhti kuma siin karo waa sida dadka adduunyada u warda ummadaha kale maanta ay u socdaan qofku waxa laga yaabaa in ay uga sahlan tahay inuu lacag ku siiyo inuu wakhti ku siiyo salafuna saalixna saasay hayeen
ووقت جودة الدين توقف فايدين شري أحد أعلام السلف بان نشيد كيسوتها غيو كل كاساوي حرية شوغان سؤال كويدية لمو بلانسرين مركا هرايبو كرداف مالنتي لبادنا وداف مالنتي صدحات بكل غيو وحول مالن والبواد الدافة يساي بالمانتا يسو كيتاك وحول هورتا قرح هذا تشوشي قرح هذا مركا تشوشي سو أيانا نونا تشوكسن دونابو انت قرح هذا الصعودة النوان صعودة يقول هذا قرح هذا لا ترتمى يسي اسكو قلما يهيني بل كاسي دقاتي مركا أضرد الفراغ بالعمل دا دوني سينا نصته واد مفسوق نقطه تاكو ددال سدا درادد بقول كيبا كونتون لخاطيرتا عالمka cilmu nafsiga ka hadlaa waxay leeyihiin waxyaabaha u kasbi kara qofka sacaadada iyo inuu raaxaysto maskaxdiisa weynasato aan u warwarin waxa kamid ah in waqtigiisu buuxo oo shaqeynayo waliba qofka maskaxda ka shaqeeya waxa ka sii mafsuud iyo farxad badan qofka muruqa ka shaqeeya bayna sida midal dadka falaaxiinta beeralayda dadka dhismayaasha ku jira dadka xamaaliinta ah يعيشون كالعصافير في سعادة وراحة سيدا شبراها سي uga geeraarayaan kaynta dhexdeeda ay isaga faraxseen ba xamaaliin taasi dad ka dhisay heesay iska tirinayaan waxa laga yaabaa kii dirayna ee taajirka umuumiga ahaana ee lacagta u hayeyna inuu maskaxda isayo warwar u naftahayo waxa kamid ah qodobka sagaalaad min asbaab saada la takun imma'a هنقولن قف دب صعدة أما سيدا وقت كان دنبا إن هنا لقى دحله أما لك عيد كلا حنبارسن هنقولن أثر باكوسو أروري ابن مسعود لقى وريه علماء قاركودا ضعيف كوهاين ضعيف كوشاجان إذا مركوحة مهمة إن أنا نفت هذا إلا وين لا تنسى نفسك وشخصيتك ولا تنسهر في الآخرين إن أنا ضدك كلا كل حمل من وشخصيتها هي نفتها آند إلاوين ومهم إلا هديد dadka dhaxadlaan dhaka kala lagu xambaariyo waxaad ku dhawaaqaysa afkaar cid kale una noqoto oo nacamla dad kale aad noqoto waa musiibo sida daraadeed ayaad ogsoonaanaysaa bani aadamka sidan ilaahay uu kala duway muuqaalkooda ayaa mawaahibkooda iyo maskaxdoodana rabbi uu kala duway subxaanahu wa ta'ala marka mawhibada iyo maskaxda ilaahay uu ku siiyay أضو استعمال عقلك كفكر قد علم كل أناس مشربهم ولكل وجهة هو موليها قفوا لبا مشرب نوا إسكالي هاي شهاء وجهة استنى ولا يهو استغى أيتها إنو صمها إيه حمان تكلمي سامو دليل كان الراعو قضب كتبنا هذا النصائح حاكم ذي وحوية الإيمان بالقضاء والقناعة به قفوا سيو السعادة ونأكسنوا هلا علايسك إيا اللورك إيا ربك هايستاوغ فضلاده وإنو الرمية قوانك إلهي إيا قرشيس وحا إلهي وقدره وإنو كقنعاه رميانا ساسو قرآنك وينبريا إلهي بوحر ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وحكستو دباتي ماده إريا دلبا إلهي باسي قدره كتاب وخصقنا انتي أنا إفكا وبصوا بحنبا وحقران باي مصيبة داسهاي إذن مركا وحكستو دعاه هاو قادن واين وقادن وايان يكون نقنين عقيدة وناكسنين واسداس من يريد الله به خيرا يصيب منه من يريد الله به خيرا يصيب منه أو يصيب منه النبي نوح عليه الصلاة والسلام قفك إلهي خير للدونه وحنب سوغارسيا marka dhibaatada soo gaaraysa qofka waa inaan oran waay sida hadiya jeer dadka diin la'aanta iyo kufriga oo haysto maxay ku dhacday wax kasto oo sabab ah oo keeni lahayd waxan inaan kaga gaashaanto waan sameeyay maxay igu dhacayaan saadaradeed ba rasuulku inoo diiday sallallahu alayhi wasallam markay wax dhacaan inuu qofku yiraahdo law anni fa'altu kada wa kada haddaan waxa sameeyay hadduu hebel halka wadada iska day lahaa miya gaarigaasi la qalib bila imisa jeer baan halka hamari hadduu waxa hebel ka hari lahaa balaadaasi miyay dhici lahayd low ereyga haddii taftaxu camala shaytaan rasuulku waxa uu leeyahay albaabka shaytaanka ayay kugu furaysaa marka xalquna waxa weeye qadar allah wama shaa facal ilaahay baa qadaray wuxuu ilaahay qadarayna ma baaqanayo adigoo sababaha qaadanaya aad ku nabadgelayso oo aan lagu lahayn naftaada dayac haddana qadarka ha ka soo dulboodin
waana mid aynu dheernahay dadka diin la'aanta ku sugan oo dee lixdii arkaanu iimaanka maxaa ka mid ah aliimaanu bilqadar khayrihi wa sharri dhib iyo dheef wixii ku soo gaadhaba waa inaad ogsoonaataa wax qoran inuu yahay